ciidamada ugu badnaa ee ku sugnaa degmada oo gaar ahaan furimaha dagaalka ayaa iskaga soo baxay halkaasi fariisimihii ay ku sugnaayeen ayna soo baneeyeen kadib markii aan la siinin 2 bilood wax mushaar ah sida ila dadka deegaanka ah ay noo xaqiijiyeen xogaha inuu keenayno og ayaa xaqiijinaya in ciidamadan ay soo kaxaysteen gaadiidka dagaalka waxaana ay sheegeen in aysan laabanaynin ilaa ay xuquuqdooda la siiyo waxaana arintaas warwar xoogan ay ku beertay Somaliland oo ka cabsi qabta in SSC qaatumo ay la wareegaan fariisimaha ciidamadan ay ka soo baxeen isla maanta waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ka baxay wasiiro badan iyo saraakiil ciidan oo iskugu tagay xalinta qadiyada ciidanka ay ku gadoodeen iyo mushaar la'aanta ay ka cabanayaan sidii loo xalin lahaa waxaana xubnaha ka soo baxay magaalada Hargeysa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka biyaha maamulka madaxweyne Biixi sidoo kale waxa safarkooda ku heliya sida xogaha aynu ku helayno taliyaasha ciidamada booliiska iyo militariga Somaliland oo wada dadaal ciidamadan dib loogu celinayo fariisimaha ay ka soo ruqaansadeen waxaana socdo qorshe mushaaradkooda lagu siinayo ciidamada gadooday ayaa 2 bilood mushaar la'aan ahaa iyagoo sidoo kalena ay jiraan tabashooyin badan oo ay tirsanayaan oo ay kamid tahay in laga cunay lacagihii ay qaadan jireen waqtiyada dagaalka oo dheeriga ahaa Somaliland ayaa xaalkeedu xilligan wuxuu yahay mid aad u adag waxaana laga cabsi qabaa in isla maantaba furimaha ay soo baneeyaan ciidamo kale oo badan kuwaas oo dhankooda mushaar la'aan toddobaadadii la soo dhaafay ka cabanayay si ay dhankooda mushaarkooda u raadsadaan gadoodna ay ugu muujiyaan sida dhaqaale la'aanta xoogan ay u haysato Somaliland waqtigan ciidamadeedu waxay ku sugan yihiin xaalad allow sahla waxaana ay u leedahay dhaqaale ay siiso kadib cadaadisyada xoogan ay kala kulantay waa heshiiska gardarrada ahaa ee ula galay Muuse Biixi ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya dhanka kale waxa arintan ay ku soo aadaysaa xilli xukuumadda madaxweyne Biixi ay qorsheynaysay inay weerar ku qaado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay mar kale dib ula wareegto arintan waxay u kaashanaysaa dawladda Itoobiya oo saraakiil ciidamadeeda ka tirsan toddobaadadii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen Somaliland si dagaaladaas ay wax uga hagaan waxa sidoo kale hakad gaday dadaalo la doonayay in lagu isku dhaafsado maxaabiista ay kala haystaan SSC qaatumo iyo maamulka madaxweyne Biixi kadib markii xukuumadda Hargeysa ay cadaadis soo saartay fariisimaha SSC qaatumo arintaas oo ku qasabtay SSC in gabi ahaanba ay dib uga laabtaan qorshaha la doonayay in xubnaha ugu jilicsan maxaabiista la kala haysto lagu kala wareego Somaliland waxa laga hayaa xubno taliyaal ciidan ay kamid yihiin oo lagu qabtay dagaalkii Gooja Cadde ee jabka xoogan loogu geystay ciidamadooda loogana furtay hubka culus gaadiidka dagaalka maxaabiista badanna gacanta looga dhigay ciidamada SSC qaatumo ayaa iyagu waqtigan waxa heegan culus ay u galaan sidii iskaga difaaci lahaayeen weerarada uga imaan kara dhinaca madaxweyne Biixi oo xukuumaddiisu dagaal ay iclaamisay iyaga oo laga yaabo in ay ku sii ruqaansadaan fariisimaha ciidamada Somaliland xilligan ay ka baxeen waa ciidamada gadoodka ka cabanaya SSC qaatumo dhanka kale waxa taageero xoogan ay ka dalbatay dawladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto weerarada qorsheysan ee madaxweyne Biixi uu doonayay inuu ku soo qaado mar kale difaacyada ay ku sugan yihiin Muuse Biixi mid kamid ah sababaha ugu waaweyn ee xilligan uu abaabulaya dagaal uu ku qaado fariisimaha ciidamada SSC waxa loo arkaa inay tahay inuu dib ugu dhigo doorashooyinka la qorsheeyay inay qabsoomaan bisha November ee sanadan 2024 waxaana horey uu sheegay in ilaa iyo inta dagaalka SSC qaatumo la soo afjarayo Laascaanoodna gacanta Somaliland lagu soo celinayo suurtagal aysan ahayn in doorashooyin ay qabsoomaan xubno ku dhow madaxweyne Biixi ayaa laga soo xigtay inuu u sheegay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi in kursiga uusan ka degi doonin ilaa iyo Laascaanood uu dib ugu soo celiyo gacanta Somaliland ceebna ay ku tahay maamulka loo dhiibay oo kala dhantaalan deegaanada qaarkoodna awoodo kala gacanta ugu jiraan inuu kursiga ka tago taasina sumcad xumo ay u keeni doonto siyaasadiisa dambe xubnaha mucaaradka ayaa si kastaba waxa cadaadis xoogan ay ku saarayaan madaxweyne Biixi in doorashooyinka degdeg uu qabto waqtigoodana ay ku dhacaan oo aan wax laaba la gelinin amaba jiitan doorasho oo kale aan la gelin iyagoo diyaarsaday ciidamo ku beel ah oo ay ugu tala galeen inay kula dagaalamaan madaxweyne Biixi haddii uu isku dayo in mar kale dib u dhigo doorashooyinka maamulka gobolada waqooyi doorashada Somaliland ee xilligan ololaheedu sida xoogan u socdo waxa ugu cadcad Cabdiraxmaan Ciro ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana ninkan lagu eedeeyaa inuu aad ugu dhow yahay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo fila Soomaaliya dhankeeda si weyn u dhisi doonta Cabdiraxmaan Ciro sida uu ku soo bixi lahaa
waxaana la aaminsan yahay haddii Ciro uu ku guuleysto hogaaminta Somaliland oo meesha Muuse Biixi laga saaro in uu soo degdegi doono midowga gobolada waqooyi iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana arrintan xogteeda hore u bixiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo Muqdisho ka sheegay in bilaha soo aadan laga taagi doono calanka buluuga ah ee Soomaaliya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland lana xallin doono khilaafka muddada dheer u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamulka gobolada waqooyi.